ciidankii tabaxsanaa madaxweynihii hore koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen sidoo kale ku sugan duleedka magaalada Beedhabo ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadleen dagaalkii ka dhacay shalay magaalada Beedhabo xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya bayaan ay soo saareen ayay ku sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay uu qayb ka yahay waxa ay ku tilmaameen halgan ay ugu soo horjeedaan maamulka hadda ka jira koonfur galbeed iyagoo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay wali fargelin ku hayso arrimaha maamulkaasi sidoo kale xubnaha falaagada ah ee maleeshiyaadka ee ku dura duulka ayaa waxa ay ku goodiyeen inay sii wadi doonaan howlgallada iyo sidoo kale weerarada ay ka fulinayaan magaalada Beedhabo iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan koonfur galbeed iyagoo sheegay in dagaalku uu sii socon doono ilaa laga gaarayo waxa ay ku sheegeen himilooyinka siyaasadeed iyo kuwa amni war-saxaafadeedka ay soo saareen ayaa waxa ay ku bilaabeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay soo saareysaa bayaanka la xiriira howlgallada amni ee socda ee lagu ciribtirayo koox maleeshiyaad ah oo loo yaqaan Salbartu kuwaas oo ku howlgalayay gudaha deegaanada maamulka koonfur galbeed kooxahan ayaa laga soo daabulay qaybo kala duwan oo koonfur galbeed ah kuna jiray Beedhabo xilli dowladda federaalka hore ee howlgallada lagu saarayo ciidamadaasi ay bilowday 2 bilood ka hor waxayna hadda galeen waajibaadkoodii ugu dambeeyay iyadoo ujeedadu ay tahay inay si buuxda loo soo celiyo awoodda dowladda ee dhammaan deegaanada koonfur galbeed howlgalladii maanta laga fuliyay Beedhabo ayaa lagu sheegay inay gaareen ujeedooyinkii qorshaysnaa taas oo sababtay jab weyn oo soo gaaray kooxda maleeshiyaadka ah dadaalada amniga ayaa wali socda waxaana howlgalladu sii socon doonaan ilaa dhammaan kooxaha huweysan ee sharci darrada laga saaro gobolka wasaaraddu waxa ay u mahad celinaysaa shacabka koonfur galbeed gaar ahaan dadka reer Beedhabo taageerada iyo wada shaqeynta ay la garab taagan yihiin ciidamada amniga dadka deegaanka ayaa xoojiyay garab istaag xooggan ay leeyihiin ciidanka amniga ee sharciga ah taas oo gacan ka geystay horumarka howlgalkan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saareen ciidamada maleeshiyaadka ay taabacsan madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed kuwaas oo haatan isku haysta ama isku tilmaamay inay yihiin maamul goori ah oo halkaasi ka jira sidoo kalena xukunka si awoodaha looga faramuroojiyay waxayna sheegeen inay yihiin maamulka sharciga ah ee jira war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu yiri kooxda Salbartu ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo culus oo ka dhan ah shacabka kuwaas oo ay ka mid yihiin dhac hubeysan baad handadaad iyo boob kuwaasoo la sheegay inay sabab u noqon karaan amni darro iyo dhibaatooyin soo gaaray bulshooyinka ay saameeyeen ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa ay ku adkeysanayaan inay sii wadaan dadaalada lagu soo celinayo nabadda iyo xasiloonida iyo ku dhaqanka sharciga war-saxaafadeedka ay soo saareen ciidanka falaagada ee ku jira duurka sidoo kale taabacsan madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed kuwaasoo jab culus lagu gaarsiiyay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Beedhabo kadib markii halkaasi weerar culus ay ku soo qaadeen iyadoona ciidamada dowladda sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed daraabiista halkaasi ku sugan ay gaarsiiyeen jab culus sidoo kalena iska caabinad xoogan halkaasi ay ka geysteen ciidamada maleeshiyaadka ee taabacsan Laftagareen ayaa waxa ay halkaasi looga qabsaday gawaari iyo sidoo kale maxaabiis aad u tiro badan kuwaasoo bulshada loo soo bandhigay haatan waxa ay soo saareen war-saxaafadeedka ay ugu hadlayaan inay yihiin maamul gooni ah sidoo kale dagaalka ay la galeen shalay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale kuwa maamulka koonfur galbeed halkaasi ku sugan